nabadda wade waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa taariikh kooban oo ka hadlaysa magaalada qadiimiga ah ee Lababaar. magaalada Lababaar waxay ku taallaa gobolka Qoraxay dhulka dowladdeegaanka Soomaalida gaar ahaan Buralida Ceelgaab. waa magaalo hoy iyo xarunba u ah dhulka loo yaqaano Ceelgaabta kaasi oo caan ku ah buuraha iyo ceelasha gaagaaban oo loogu magac daray Ceelgaab kuwaasi oo laga cabo biyaha. haddaba magaalada Lababaar inagoo mid u dul istaagi doona deegaanada hoos yimaada maxay ku caan tahay. magaalada qadiimiga ah ee Lababaar waxa ay ku caan tahay buuro waaweyn, ceelal biyoodyo iyo sidoo kale dhul bucuud, suubaan, xagaf iyo dhulal kala duwan. waxayna dhanka koonfur bari qiyaas ahaan magaalada Qabridahar ee xarunta gobolka Qoraxay kaga beegan tahay. waa maxay micnaha magaca Lababaar? inkastoonan daraasadayn dheer aanan ku samayn magacaasi, balse dadka awowayaasha iyo aabaadii hore ee deegaanka laga soo firsaday waxa ay sheegaan in magaca Lababaar uu ka yimid laba dhismo oo magaaladu ka koobnayd ama laba fidqo oo iska soo horjeeda, sida darteedna loogu bixiyey Lababaar. markii la baaro gobolka iyo qaybaha kala duwan ee aaladaha adduunka casriga ah wax loo adeegsado si loogu ogaado taariikh tagay, waxa uu ku muujinayaa in magaca Lababaar ay gobol ahaan ama gobolka ugu qoran tahay Limimber. waxaana halkaasi kaaga cadaanaysa in horay magaaladan ay ahayd mid qadiimi ah oo horay loo soo deganaan jiray. magaalada waxaa soo maray maamullo kala gedisan, waxaana maamulkii ugu horreeyey laga yigleelay sanadii 2001 iyadoo allaha u naxariistay uu guddoomiyihii ugu horreeyey noqday Cabdiyare. waxaa 2007 dabayaaqadeedii xilka deegaankaasi la wareegay Cumar Maarig oo ilaa hadda haya xilka degmada, inkastoo ay dadka bulshada ee deegaankaasi ku dhaqanay ku doodayaan in aysan jirin wax maamul ah oo sharci ah oo ka dhisan degmada Lababaar iyo guud ahaan deegaanada Ceelgaab. Lababaar waxaa degmo u magacaabay madaxweynihii hore ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar sanadkii 2017 xilli uu soo gaaray magaalada Lababaar. degmada waxaa hoos yimaado qabalayaal kala duwan sida Dhagaxbuur, Balidhiig, Magaase, Baldigod, Yaanyo, Qaydar iyo Gumbur iyo deegaano fara badan oonan halkan ku soo koobi karin. inkastoo ay degmadu buuxisay shuruudaha looga baahan yahay degmanimo, haddana ma jiraan waxyaabo xuquuq ah oo dowladdeegaanka Soomaalida ay si toos ah uga hesho. magaaladu waxay la daalaa-dhacaysaa waxbarasho la'aan, biyo la'aan iyo caafimaad la'aan oo ah tiirka nolosha aadanaha markii loo fiiriyo dunida maanta aanu ku noolahay. iyo ganacsatada ka soo jeeda intooda badan waxay isaga bixeen deegaanka oo waxa ay waxbarasho iyo heer ganacsi u aadeen wadamada jaarka. isku soo wada xooriyo isbedelada ka dhashay dowladdeegaanka Soomaalida sanadihii la soo dhaafay wax saameyn ah oo sidaa u dheer kuma yeelan maamulka degmada Lababaar ee gobolka Qoraxay. daawadayaal dhegeystayaal, waxaan intaa ku hakinayaa warbixintii koobneed ee kaga hadlayay taariikhda magaalada qadiimiga ah ee Lababaar. waxaan filayaa in warbixino, nuqullo iyo muuqaallo aan idiin soo gudbin doono haddii eebbe raalli ka noqdo.